بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. بسم الله إلهي مقعيس أيانكو بالله سوردان الله سو الرحمن نحريستا قد نحريستا الله سو الرحيم نحريستا خاصا نحريستا. لا أقسم وان دارنايا بهذا البلد بلد كان أيانكو دارنايا وأنت أذيقنا حل مد دقنباتهي بهذا البلد بلد كان أو كان ووالد مد وح دلي أيان كو دارنايا إيا وما ولد وحو دلي. لقد خلقنا الإنسان جواب قسمك لقد خلقنا الإنسان إنسانك وان أبورني في كبد دبات دحديدا حالا كسوغن يحي أيحسب موحا أملينا يا ألن يقدر إنو سكرين عليه كركيس أحد الله أحدك يقول وحوليه أهلكت وان هلاغي مالا حولو لبدا فربضا أيحسب موحا أملينا يا أن لم يره إنو سأركين أحد الله أحدك إنو سأركين ما أملينا يا ألم نجعل سوما يلين له إنسان كعينين لما إندوت ولسانا عرب ميان أيلين إيا وشفتين لما بشموت وهديناه ميان وعدين أكوهنونين النجدين لما دي ودو فلاقتحما موقلو فلاقتحما موقلو العقبة جيرتا أما كرنتا وما أدراك محاكو أغيسيي ما العقبة عقبة وحيتاي محاكو أغيسيي فك رقبة لقن حرنتي دواي أما قر حرنتي أو إدعام أما قودين واي في يوم مال دحديس لقوديو مال كاسودي مسقبة قاجو إيباهي أصاحبه يتيما أقول لقوديو ذا مقربة قرابة أصاحبه أو مسكينا مسكين لقوديو ذا متربة دعد أصاحبه عردع ثم كدب كان مو هذا من الذين كوي متكمدة آمنوا مؤمنين تاهاي وتواسوا اسكو دردارمي بالصبر صبرك وتواسوا اسكو دردارمي بالمرحمة نحريستا. أولئك كواس أصحاب الميمنة مدكت أصحاب تيدواي والذين كوي كفروا كفري أو قالوا بآياتنا آيات كينا كو قالوا هم أيغو أصحاب المشأمة بدحد أصحاب تيدويان عليهم كركوض وحا هذه النار نار تاسو مؤسدة لغو دبولي أو لغو حري. سورة البلد سورة دان ومكيو آيات كدون واللواتن آيات ترتيب كذا مسحف كقرآن كمركي كرلغو صوتريان وسغاشا كلمات كدون واسديتا إيا لما كلمو حروف تدون واسدح بقل صد إيا شن حرف. لا أقسم بهذا البلد waxaan ku dhaaranayaa baladkan maka ayaa laga wadaa makana magacyada kale ay leedahay waxaa kamid oo kale bakkana waa la dhahaa in awwala baytin wudi'a lin-naasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. marka maka wadamanka kulli ayada ayaa u khayr badan weeyaan. dhulka lama loo qaybiyaa qaarna waa badow biyo ku jiro qaarna biyo kuma jiraan oo waa yaabiskan aan ku noolnahay anagu. marka yaabiskan aan ku nool nahay dhulkan caadiga oo qalalan maka ayaa u khayr badan weeyaan wadamanka ku yaalo. wa anta xillun bihada albalad maxamedow beledkan xalaal ayuu ku yahay inaad ku dagaalanto xurmadiisa kadib. nabi sal ly slam wuxuu yidhi ina allaha qad axallaha lii saacatan min nahaarin wa ina xurmataha caadad ka yowmin khalaqa asamaawaati waalard. ilaahay wuxuu ii xallilay aniga inaan ku dagaalamo saacad oo maalinta ka mid ah xurmadeeduna kadib way u soo laabatay sida ilaahay markuu abuuray samaawaadka iyo dhulka see marka hore camal ay u soo laabatay. wawaalidin wamaa walad waxaan ku dhaartay waalid iyo wuxuu dhalay. waalidkaas aadam waa lagu fasiraa iyo wuxuu dhalay. waxaa kaloo soo gelaayo cid kasta oo wax dhasha iyo waxay dhashay ayaa soo gelaya. waxaa la sheegaa wixii dhegahooda ay bannaanka yaalaan oo dhegahooda loo jeedo caadi ayay u dhalaan wax nool ayay dhalaan
wixii aan dhegahooda la arkaynin oo dhegahooda ay qarsoon yihiinna mataqaanaa ukun ayay dhalaan wax noocaasaa la sheegaa laqad khalaqna alinsaana fii kabad insaanku waxaanu ku abuurnay kabad iyo dhibaato dhexdeeda dhibaatadana waxaa ka mid ah mar mataqaanaa waa xanuunsan tahay mar waa tiiraayaysan tahay mar waa caraysan tahay waa xanaagsan tahay mar waxaad rabta ma helaysid adduunka markaad joogto mar mataqaanaa waa fikiraysaa mar waa cabsanaysaa ilaa aad ka dhimanaysa weeyaan haddaad dhimato haddii adduunka intaad joogta khayr aad samay jirtay oo waddo khayr aad ku socotay raaxo iyo jannaa kuu dambayso oo ay qabri kaaga bilaabanaysaa markaad dhimato haddii markii adduunka aad joogtay aad mataqaanaa adoo dhibaatadaas ku dhex jiro haddana aad ilaahay mataqaanaa waxaylahu kaa reebay iyo macaasida aad qasa jirtana haddaad dhimato dhibkii aad ku jirtay mid ka daran ayaad gelaysaa weeyaan waad hoogaysaa waana khasaaraysaa naar ayaana kuu dambaysa weeyaan ayaxsabu an lan yaqdira calayhi axad waxaa la sheegaa oo mataqaanaa culammada qaarkood ay sheegaan inay ku soo degtay nin magaciisa la dhahaayo abilashad binu kaldata aljumuxi ninkaas wuxuu ahay nin faan badan oo xooggiisa jirka ah ku faana oo aad u xoog badan oo qawi ah oo xatee markii laysku day in la jiido xatee aan la jiidi karin oo aad u xoog badan saasaa la sheegay laakiin ilaahay baa garanaya allahu aclam yaquulu ahlaktu maala lubadan meeshaana waxaa la sheegaa inay ku soo degtay xaaris binu caamir nin magaciisa la dhahaayo ninkaasna wuxuu ahay mid xoolihiisa bixiya si uu diinta iyo rasuulka uu dhibo sala allahu alay wasalam wuuna ku faani jiryey yaquulu ahlaktu maala lubadan xoola fara badan ayaan ku bixiyey diinta la dagaalankeeda ayuu dhihi jiray weeyaan allahu aclam asna in laga wado asaga iyo in mataqana cid kale laga wado ayaxsabu an lam yarahu axad wuxuu u malaynaya inaysan cid arkaynin muu u malaynayo markuu waxaa samaynaayo alam najcal lahu caynayn insaanka miyaana u yeelin lama indhood miyaana u yeelin lamada indhoodna waa nicmooyinka ilaahay uu ku siiyo kuwa u waaweyn ayay ka mid yihiin weeyaan marka ilaahaygi lamada indhood ku siiyo wuu ku arkaayo weeyaan waxaa samaynayso wa lisaanan wa shafatayn allihii ka hadashiiyey oo carabka iyo lamada farood ku siiyey oo ka mid ah nicmooyinka ilaahay ku siiyo kuwa u waaweyn oo mataqaanaa faa'iido weyn nolosha insaanka ku leh allihii ku siiyey mataqaana wuu ku arkaayo weeyaan wahadaynaahu najdayn hanuunkan waxaa lagu fasiraa mataqaanaa hidaayatu dalaalati walirshaad ma aha dee lagama wado hidaayatu tawfiiq walilhaam lagama wado waxaa laga wadaa hidaayatu dalaalati walirshaad yacni waddadii khayrka iyo waddadii sharta ayaan ku hanuuninay imaa shaakiran wa imaa kafuuran rasuul waa lagugu soo diray kitaabna waa lagugu soo dejiyey waa lagugu soo dhiibay wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcasa rasuula ilaahayna cid ma dulmiya jala jalaaluh wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid ina allaha laa yadlimu mihqaala darah walaa yadlimu rabbuka axada qur'aanka dhexdiisa kaasna waa ilaahay subxaana wa tacaala cadaaladiisa inay kaamil tahay weeyaan ilahay subxaana wa tacaala wax ka cadaalad badan ilahay ma jiraan subxaana wa tacaala falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba caqaba maxaa ku ogeysiiyey ilah baa nooga jawaabaya subxaana wa tacaala fakku raqabatin rasuulka sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi man actaqa cabdan actaqa allaahu minhu bikulli cudwin cudwa min annaar qofkii qofkii xoreeya ilaahay baa mataqaanaa xibnihiisa kulli xibin kastoo ka mid a ayuu ilaahay subxaana wa tacala naarta u ka xoreeya weeyaan addoonka xorintiisana waxaa ka mid ah mataqaanaa kuwa xatee oo muslimiinta oo gaalada ay qabsadeen in laga soo daaya gaalada weeyaan ow idcaamun fii yowmin dii masqabatin quudin oo maalin dhexdeeda mid baahi u saaxiiba la quudiyo oo qaajaysan lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wanaag gaari maysaan ilaa aad ka bixisaan waxaad jeceshihiin wayudcimuuna aطacaama calaa xubihi miskiina wayatiima waasiira cuntada ayay quudinaayaan mid ayagoo jecel ayay quudinaayaan weeyaan miskiin ayay quudinaayaan agoon ayay quudinaayaan mid la qafaasho ayay quudinaayaan yatiiman daa maqrabatin agoon oo qaraabo u saaxiiba agoonka hadduu qaraabo kula yahay iyo markuu qaraabo kula ahayn way kala ajri badan tahay agoonka hadduu qaraabo kula yahay oo gacanta aad ku hayso asiga maamulkiisa lama ajraa leedahay ajirkii qaraabo xiriirinta iyo ajirkii sadaqada ayaa leedahay weeyaan
agoonna waxaa la dhahaa kii midka oo aabihiis dhinto asagoo weli qaan gaarin oo 15 sano oo mataqaana weli aan gaarin oo aabihiis dhinto hooyadiis maaha aabihiis oo dhinto kaas ayaa agoon laha weeyaan haye bini aadanka saas waay xayawaankana waxaa agoon la dhahaa kuwii oo mataqaana ay hooyadiis dhimato mataqaana aabaha maaha ilaa aabaha waa neefka waa iska boodaa waana ka tagaa mataqaana ma badaneeyabo aw miskiinan daa matraba miskiin oo u saaxiiba mataqaana dhul dhicid iyo carro dhicid wuxuu haysto ma laha weeyaan ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة muxuu u haawaayey kadib kuwii rumeeyey oo isku dardaarmay sabarka oo isku dardaarmay naxariista kuwaas asxaabul maymana waaye midigta asxaabteeda waaye jinnay gelayaan waa liibaaneen weeyaan waladiina kuwii kalena awe waladiina kafaruu biaayaatina hum asxaabul mash'ama kuwii kufriyey oo aayaadkeena ku kufriyana ilaahay wuxuu leeyahay kuwaasna waa bidixda asxaabteeda kitaabkooda gacanta bidixda ayaa laga siinaya naarayna gelayaan walciyaadu billaah calayhim naarun mu'sada naarta ayaa lagu daboolayaa si ay mataqaana ayna u leyrsanin mu'sadatun qira waaye muusadatun qira kale weeyaan bismi illaahi araxmaani araxiim laa uqsimu waan dhaaranayaa laanka naafiyaha ma ahan oo diidmada ma aha weeyaan waa zaa'ido laa uqsimu waan dhaaranayaa bihaada albaladi beledkan maka ayaan ku dhaaranayaa wa anta adiga xillun mid mataqaana degan ayaa tahay nabi allahu bihaada albaladi beledkan amba mid inuu ku dagaalamo ay xalaal u tahay saacadda uu furanaayo ayaa tahay labadaas macno lagu fasiraa wa waalidin mid wax dhala ayaan ku dhaaranaya iyo wamaa walada wuxuu dhalay laqad khalaqna alinsaana insaanka waanu abuurnay fii kabadin dhibaato dhexdeeda ayaan ku abuurnay ayaxsabuma wuxuu u malaynaya allan yaqdira ayaxsibuna qira waayo oo siinka loos dhigo ayaxsabuma wuxuu u malaynaya allan yaqdira inuusan karaynin calayhi korkiisa axad inuusan karaynin yaquulu wuxuu leeyahay ahlagtu waan halaaga oo waan bixiyo maalin xoolo lubadan ee fara badan lubadka waxaa lahaa timaha libaaxa ayaa lahaa weeyaan libaaxa timihiisa ayaa lubad lahaa si u fara badan yihiin marka xoolo fara badan ayuu mataqaana ka wadaa ayaxsabuma wuxuu u malaynayaa ayaxsibuna tanna waa siinka loo sigan qira kale waay allam yarahu inuusan arkaynin axad inuusan arkaynin ma u malaynayaa alam najcal soo uma yeelin lahu asaga insaanka caynayni lama indhood miyaana u yeelin walisaanan carab miyaana u yeelin washafatayn lama bishimood lama farayood miyaana u yeelin wahadaynaahu miyaana ku hanuunin oo u caddaynin an najdayn lamada wado waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa lamada naas oo hooyada cunuga uu ka nuugaayo cunuga miyaan ku ilhaamin markuu dhasho lamada naas inuu nuugo taasna waa lagu fasiraa falaqtaxama wuxuu u geli waaye falaqtaxama mataqaana muu ka gudbo alcaqabata jirta ama karinta muu ka gudbo buurta laga wada caqabada wamaa adraaka maxaa ku ogeysiye malcaqabatu caqabo waxay tahay maxaa ku ogeysiye buurta fakku raqabatin ilaahay baa nooga jawaaba jala jalaaluh fakku raqabatin luqun xuranteeda waaye ow idcaamun ama quudin waaye ow idcaamun fii yowmin maalin dhexdeeda la quudiyo yowmkaas oo dii masqabatin qaajo u saaxiiba iyo baahi yatiiman ka bedel yatiiman agoon la quudiyo daa maqrabatin qaraabo u saaxiiba marka waan u bishaaraynayaa dadka agoomanka haayo oo qaraabada ay yihiin khaasatan waan u bishaaraynaya hanii'an lakum bishaaro ayaa mataqaana idin sugnaatay ee mas-uuliyaddaas mataqaana dhoojiya weeyaan insha allahu tacala ilahi ba ajrin ka sii doonee jirnaa ku geli doontaan insha allahu aw miskiinan ama maskiinkaasoo daa matrabatin dhul dhicid u saaxiiba caradhac u saaxiiba oo qaajo saa'id ay hayse mataqaana uma kadib kaana wuxuu u ahaa waaye min aladiina kuwii mid ka mida aamanuu rumeeyey oo watawaasow isku dardaarmay bisabri sabarka isku dardaarmay oo watawaasow isku dardaarmay bilmarxamati naxariista ulaa'ika kuwaas asxaabulmaymanati midigta asxaabteeda waaye waaladiina kuwii kafaruu kufriye oo gaalowa biaayaatina aayaadkeena ku kufriye hum ayagu asxaabulmash'amati bidixda asxaabteeda weeyaan calayhim korkooda waxaa ahaadeen naartaasoo mu'sidatun lagu daboolay haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu